markay dadkii badnaa arkeen inaan ciise halkaas joogin iyo xertiisiiba waxay fuuleen doonihii wayna yimaadeen kafarnaum iyagoo ciise doondoonaya oo markay isaga ka heleen badda dhinaceeda kale waxay ku yidhaahdeen macallimow goormaad halkan timid ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay iima doondoontaan calaamooyinkii aad aragteen aawadood ee waa kibistii aad gurteen oo aad ka dheragteen aawadeed ha u shaqaynina cuntada halaabaysa laakiin u shaqeeya cuntada sii jiraysa ilaa nolosha weligeed ah ee wiilka aadamsiin doona waayo isaga aabbaha ilaaha ah ayaa caddeeyey sidaas aawadeed waxay ku yidhaahdeen maxaan yeelnaa si aanu shuqullada ilaah u samayno ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi kaanu waa shuqulkii ilaah inaad rumaysataan kii uu soo diray sidaa darteed waxay ku yidhaahdeen haddaba calaamadee baad samaynaysaa inaynu aragno oo ku rumaysanno maxaad samaynaysaa awowayaashii ee cillada ku cuneen maalada sidii loo qoray wuxuu samada ka siiyey kibis ay cunaan haddaba ciise wuxuu ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay muuse samada idinkama siin kibistii laakiin aabbahay baa samada idinka siiya kibista runta ah waayo kibista ilaah waa kan samada ka soo degay oo dunida nolosha siiyey haddaba waxay ku yidhaahdeen sayidow kibistan mar walbana sii markaasaa ciise wuxuu ku yidhi anigu waxaan ahay kibista nolosha kii ii yimaadaa ma gaajoon doono kii i rumaystaana ma haraadi doono weligii laakiin waxaan idiin sheegay inaad i aragteen mase rumaysataan dhammaan wuxuu aabbuhu isiiyo way ii imaan doonaan oo kii ii yimaadana ma eri doono waayo waxaan samada uga soo degay ma aha inaan doonistayda yeelo laakiinse inaan yeelo doonista kii i soo diray tanu waa doonistii kii i soo diray in kuwii uu dhammaan isiiye aan midna ka lumin laakiin inaan maalinta u dambaysa soo sarakeliyo waayo tanu waa doonistii aabbahay mid kasta oo wiilka arka oo rumaysta uu nolosha weligeed aan ahaado aniguna maalinta u dambaysa waan soo sarakelin doonaa sidaas aawadeed yuhuuddu way gowraceen maxaa yeelay wuxuu yidhi anigu waxaan ahay kibista samada ka soo degtay waxayna yidhaahdeen kanu miyaanu ahayn ciise ina yuusuf kaanu aabbihiis iyo hooyadiis nafaan hadda sidee u leeyahay samada baan ka soo degay markaasaa ciise u jawaabay oo ku yidhi ha ka gunuunicina dhexdiina nina iima iman kara hadduusan aabbihii soo diri soo jiidin aniguna maalinta u dambaysa baan soo sarakicin doonaa waxaa ku qoran kitaabadii nebiyada weligood ilaah baa wax bari doona mid kastoo aabbaha wax ka maqlay oo ka bartay waa ii yimaadaa ma aha inina arkay aabbaha kii ilaah ka yimid mooyaane isagu waa arkay aabbaha runtii waxaan idinku leeyahay kii i rumaystaa wuxuu leeyahay nolosha weligeeda anigu waxaan ahay kibista nolosha awowayaashiin waxay cidlada ku cuneen maalada oo ay dhinteen tanu waa kibistii samada ka soo degtay in qof kastaa cunaa uusan dhiman anigu waxaan ahay kibista nool ay samada ka soo degtay haddii qof uu kibistan cuno weligiis wuu noolaan doona oo kibistan siin doonaa waa jidhkayga nolosha dunida aawadeed sida aawadeed yuhuuddu way isla murmeen iyagoo leh kanu sidee buu jidhkiisa inoo siin kara inaynu cunno ciise haddaba wuxuu ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay haddaydnaan jidhkii wiilka aadanaha cuninoo dhiigiisa cabin nolosha kuma liidin gudihiina oo kii jidhkayga cunoo dhiigayga cabo wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah oo maalinta u dambaysa baan soo sarakicin doonaa waayo runtii jidhkaygu waa cunto dhiigayguna runtii waa wax la cabo kii jidhkayga cunoo dhiigayga cabo wuxuu jiraa annama ku jira isaga sida aabbaha nool ii soo diray aniguna aabbahan u noolay daraaddiis sidaasaa kii i cunay isaguna u noolaan doonaa daraaddeed tanu waa kibista samada ka soo degtay ma aha sida tii awowayaashii cuneen oo ay dhinteen kii kibistan cunaa
weligiis ku noolaan doono. waxyaalahaas ayuu sinagooga kaga dhex hadlay intuu kafarnaam ku barayay. sidaa aawadeed raggiisii badido markay maqleen waxay yidhaahdeen hadalkaas waa adag yahay yaa maqli kara. laakiin ciise kudhiisu wuu ogaayay xagtiisu taas ka dunoolaaday. wuxuuna ku yidhi taas bay ka xun tihiin. haddaba maxay noqon haddaad aragtaan wiilka aadanaha oo kor ugu baxay meesha markii uu joogiyey. waa ruuxkan wax nooleeyaa jinsi waxba badnano. ereyadii aan iskula hadlayna waxay yihiin ruux iyo nololba. laakiin waxaa dhexdiisa jira qayn islamid ah oo aan waayo taniyo bilowgii ciise waa garanayay kuway ahaayeen kuwa aan rumaysan iyo kuwa ahaa kii gacan gelin lahaa. markaasuu yidhi taas aawadeed waxaan idinku yidhi qabna iima iman karo haddaanu aaban waawoodti. taas dabadeed xagtiisii intii badnayd dib bay uga noqdeen oo mar dambe lama ay socon. dabe ciise wuxuu 12 ku yidhi idinkuna ma doonaysaan inaad tagtaan. markaasaa simon butros wuxuu ugu jawaabay sayidow yaanu u tagaa adigaa haya ereyadii nolosha weligeeda. annaguna waan rumaysannay waana ognahay inaad tahay kan quduuska ah ee ilaah. ciise wuxuu ugu jawaabay miyaanan idin dooran idinkoo 12 ah. mid idinka mid ahna waa cudbiin. wuxuu ka hadlay judasna simon iskariyood waayo isagu ahaa ka gacan gelin lahaa isagoo 12 ka mid ahaa.